kulan wanaagsan daawaday waa mar kale iyo warbixin xiiso leh oo aynu ku soo qaadanayno sharaxaadda mid ka mid ah xeeladaha cajiibka ah ee uu adeegsado indhasarcaadiyaha weyn ee lagu magacaabo Shim Lim. Indhasarcaadkani waxa uu ku saabsan yahay turub la saxiixay oo inta la waayo haddana indhasarcaadiyuhu uu afkiisa ka soo saarayo. Shim, gabadha garsoorka ka tirsan ee barnaamijka American Got Talent ayuu ka codsanayaa in ay hal turub qabsato kadibna saxiixdo si uu indhasarcaad ugu sameeyo. Gabadhu turubka ayay saxiixaysaa kadibna inta uu ka qaado ayuu turubka miiska ku tuurayaa. Waxa xiga turubkii la saxiixay oo markii kor loo soo qaaday noqday mid wajiga hore ka cad oo tirtiran. Markaas kadib turubkii ay gabadhu saxiixday ayuu si kadis ah afka uga soo saarayaa. Tani ma mid caqli gal ahba. Haddaba waa xeelad fudud. Marka hore inta aad muuqaalka si degan u daawatid isweydii maxay tahay sababta uu Shim kurjinka turubka ah uu afka ula aaday. Sirta ugu weyn ee ay xeeladani ku tiirsan tahay ayaa halkaas ka bilaabata. Sidee haddaba aan ku sharaxo. Haddii aad si dhow ugu fiirsatid muuqaalka ku saabsan marka uu turubka gabadha ka qaaday isaga oo turub badanna gacanta ku haya waxaad ogaanaysaa in turubkii uu halkaas ku kala bedelay. yacni turubkii ay gabadhu saxiixday ayuu tartiib inta hoos mariyay ayuu kadib miiska ku soo tuuray turubka wajiga ka cad isagoo ka dhigaya in uu miiska saaray isla kii ay gabadhu saxiixday. laakiin turubka ay gabadhu saxiixday wuxuu ku hoos jiraa turubka kurjinka ah, micnaha turubka badan ee uu gacanta ku hayo. isla waqtigan turubkii ay gabadhu saxiixday intuu laalaabay ayuu faraha ku qabanayaa si qarsoodi ah. kadib isagoo iska dhigaya in uu gacmaha xeedxeedanayo ayuu turubkii badnaa afka ku qabanayaa. laakiin xasuusnow ujeedkiisu waa in uu turubkii uu laalaabay afka geliyo isagoo aan la fahmayn. sidaas ayuu turubkii saxiixnaa afka ugu soo reebay kuwii badnaana miiska u soo saaray. markaas ka bacdi wuxuu dadka tusayaa turubkii uu marka hore miiska ku soo tuuray oo ahaa midka wajiga hore ka cad. qof kasta wuxuu u haystaa in kii la saxiixay uu yahay oo laakiin dib ka noqday turub wajiga ka cad. ugu dambeyn afkiisa ayuu ka soo saarayaa turubkii saxiixnaa. waa taas xeeladaas indhasarcaadka ee uu Shim Lim uga yaabsaday daawadayaal badan oo ka qayb galay bandhigiisa xiisaha badnaa. fadlan haddii ay warbixintani ku xiiso gelisay like saar. amar maaha waa codsi. aragtidaaduna waa noo muhiim ee nala wadaag adiga oo mahadsan. sidoo kale waan kaaga mahad celinaynaa daawashadaada iyo waqtiga aad ku bixisay warbixintan. insha Allah waxaanu soo diyaarin doonaa warbixino kale oo ku xiiso geliya. inta ka horeysana nabadgelyo.